بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta halkan waxaynu ku eegaynaa bal qaabka loo sameeyo marka la joogo cookbook interbill against inventory qaabka loo sameeyo ayaynu eegaynaa interbills against inventory wax kala maaha wax weeyaan alaab baa ku timi alaabtii aad soo purchase gareysatay aad dalbatay ayaa waxaan la socon oo laga soo ilaaway invoice-kii alaabta warqadii cadeynaysa alaabta inta lagu soo iibiyay qiimaheedii waxaas markaas bal qaabka alaabta loo qabsado iyo waxa weeyaan qaabka hodhow toolo loo geliyo markay warqadii timaado juwankii ama uu yimaado qaabka loo geliyo ayaynu eegaynaa marka hore waxa weeyaan qaabkii aynu u qabsan jirnay purchase-ka funderska qaabka waxaan u qabsan jirnay waad garanaysaan markaanu qof funder wax ka soo qabsanayno waad garanaysaan qaabka aynu u qabsan jirnay inventory waxaan tagi jirnay receive inventory baan tagi jirnay dadna waxaan tagi jirnay receive inventory with bill markaas oo markay biilkii wadato marka bal waxaan eegaynaa maanta biilkii ma wadato waxa weyn casharradeena hore waa inaga ku sharaxnay sida faahfaahsan ugu sharaxnay marka maanta biilkii ma wadato marka waxaan tagaynaa alaabtii baa inoo timi alaabtii way ku soo gaadhay meherdaadii bay timi laakiin si wax allaale waxay wadataa ma jirto qiimihii ma wadato quantity ba ku yimi markaas waxa weeyaan waxaad iranaysaa receive inventory with out bill waxa weeyaan juwankii ama uu soo ilaaway ama waxa weeyaan nabuu soo raacin marka waxa weeyaan halkan baad ku qabsanaysaa qofka aad ka qabsanaysay in qof samaysano qof baynu abuuranaynaa aynu ka qabsano vendor ah waxaynu ka qabsanaynaa oo kale xaaji ayaan kala ka qabsanay waa company waa shirkad xaaji company ayaan ka qabsanay markaynu ka qabsanay waxa weeyaan sidii caadiga vendor kala jiray oo abuurnay alaabta hadaba aynu qabsanayno waxa weeyaan hagaas markasta waxa weeyaan marmar bay expense ka aadaysaa marka waa inaad qaybtan doorataa marka qaybta expense wax la isticmaalay marka interbillska marka expense la gelinayo ayaa la isticmaalayay wanaga hore soo sheegnay laakiin si waxtiisa item oo markasta itemkan ku jooga itemyada ka qabsanaya waxa weeyaan kan baan ka qabsanayaa markaan qabsado ka waxaan qabsaday 200 xabo ayaa yimi wax allaale wax qiimo wadataa ma jirto marka qiimaha 0 baad ka gelinaysaa ila warqada waxa weeyaan alaabta warqadii lama socoto qiimo laga soo siiyay alaabtan baa ku timi mid kale aynu qabsanaynaa hadaynu doono waxa weeyaan kana 300 baynu qabsanaynaa isna wax allaale wax la socdo ma jiraan alaabtun baan markaa record garaasanay tan macnaheedu waxa weeyaan item receipt item ku baan qabsaday marka biilkii maan qabsanin waxa weeyaan warqadii lama socoto halka waxaynu gelin jirnay warqada uu qofka venderka ku soo diro alaabta ku soo raaciyo gelin jiray lambarkeeda marka maanta waxa la soo raaciyay ma jirto alaab duulaysun bay soo gashay oo wax weeyaan gaarigii ii soo dhigay alaabta marka ku biilkeedii meemaha ayuu yiri ninkii kala xidhiid ku soo diray alaabta marka horta alaabta waa inaad qabsataa waa inaad alaabtii meheradaadii way taalaa hodhow tolo beenbad ku sheegaysaa wax weeyaan alaabtii oo meheradii taala computerkan wax ku sheegay marka waa inaad alaabtii qabsataa qiimayaashiina garanaysid marka qiimahii 0 way iska gelinaysaa saasin ku save gareynaa markaan saa ku save gareyno hadaynu vendor center ka tagno imka qofka aynu abuurnay xaaji company waxa laale wuxuu inagu leeyahay ma jirto waxa weyn waa 0 alaabtaas ma qabsanay lacagtii imayna qorin lacagtii anaga waxa weyn 0 ga gelin marka wax lacag ah waa qorna hodhow tolaadu ku dhaho qofkii lacagtii soo dir waxa weeyaan lacag kuma hayaa daranaasa biilkii soo dir biilkii aan ku geliyo computerka biilkii marka aan lacag ku siiyay waxa weeyaan kaama qaadi karo waxa weeyaan lacagta waa inuu biilka u soo diraa waxa dhacaysa hadaba maalin dambe ayaa waxa dhacay wuxuu ku soo diray markii aad qabqabsateen hadaa doontaan ama aad weydiisay dhowr jeer aad tiri warqadii ma hayo inta badan Soomaalidu ma isticmaasho qaabkan waxa weeyaan alaabta ku timaado qofka alaabtii buu iska dhiganayaa meheradii qiimihii hore uu ku iibin jiray alaabtiisa hore ee la midka ahayd uu ku iibinaya marka hodhow tunba isqabsi dhacaya waxa weeyaan qofku xoranaya alaabtii way rakacdayo intaaba kaama soo siinay intaasan ka soo siiyay oo ana intii hore ku iibiyay intii hore dad ku iibisay waxa weeyaan marka wax ku yaala maaha isaga u yaala maaha marka waxa weeyaan markasta alaab marka dalbanayso waa inaad haysataa biilka alaabtu ay ku timaado waxa weeyaan alaabta iska cili hadii aanad biilka haysanin marka waxa weeyaan hodhow biilkii uu ku soo diray xiriir alaabtii intaasan ka soo siiyay waayo waxa tagaystaa halka ay ku taalo interbill against inventory marka halkaas waxa ka dooranaysa qofka magaciisa waxa weeyaan xaaji company xaaji company way dooranay markaas okay baan leenahay invoice-kii baa inoo soo dhigmaya markaas ugu dambeeyay hodhow tilakaas qaar badan isku soo dhigmaya marka ka doontid baad ka dooranaysaa laakiin seemka kaasoo khaliya okay baan leenahay okay markaynu nahno halkan waxa inoo soo dhigmay wadaaratan maalintii ayaa inoo soo dhigmatay iminka ayaynu ku qoraynaa warqadii waanu haysanaa iminka waan ka eeganaynaa ka wuxuu naga soo siiyay $1 okay ku dhufo
imka halka inta laga soo siiyay intaas ay u noqotay halkan wuxuu naga soo siiyay $2 ba ka soo qaad ugu dhufo imka hadaynu isnaha transaction ku save gareeya waxa weeyaan inoo save gareysan maayo hadaynu isnaha save gareeya uu diiday you have changed the transaction do you want to record bulay marka hadaan yes hadaan raho uu diiday wuxuu leeyahay the transaction is not in a balance dima waxweeyaan balance ma waxweeyaan xaqan lacag ba ku qoran xaqana zero ba ku qoran waad aragtaan halkan imka amountigi zero ba ku qoran marka waxweeyaan in labadana la isku geeyay xaqa ku qorna xaqa ay ku qoran tahay labadana la isku geeyay oo waxweeyaan 200 oo loo geeyay 600 800 in halka ku qoranto ayay ahayd marka ma save gareyn kartid marka waxaad samaynaysaa halka ay ku taalo recalculate ayaad ku dhufanaysaa dib u xisaabinay recalculate wixii kale uu ka qaaday meelaha yaalay imka warqadda waad haysataa warqadana lambarkeeda baad gelinaysaa marka inta aad geliso waxaad samaynaysaa save address iminka ayaa qiimihii alaabtii wixii aad save garaysay marka saa ku save garaysay imka hadaynu tagno vendor centerkeena hadaynu tagno vendor centerka hadaynu tagno waxaad arkataan Xaaji company waxay nagu leedahay 800 oo lacag ay nagu leedahay 800 oo lacag ay nagu leedahay halkan waa tan way xaweeyaan alaabtii ba saa soo gashay marka qaabkaas ayaa loo geliyaa markaad gelinayso inventory